gabadhani waa gabar Soomaaliyeed waa gabar muslima in laga dhigo Christian in laga dhigo ay maraysa oo ay diinta Kristanka macnaha dabcan maanta ku leedahay macnaha anigu muslim ma ahay anigu 12 jir ayaa maanta ku leeyahay anigu muslim ma ahay diinta laga bedelay yes Christian baa loo hayo noqotay halkaas hadda maanta waxay taagantahay hadda ay u iman laada ilaa hadda waxa weey waan ka baqaya ani Christian baan noqday muslim maragtay halkaas hadda maraysa waxa la Christian noqday mana soo socdo arrimo noocaas oo kale hadda soo baxbaxayo hadda markii maxkamadda go'aankan ay gaartay kadib hadda soo kordhay asbuucan hadda beesha hadda isla sababtaan u joogna arrimahaas ka mid ma qasana jirtaa gabadha 12 sano jirta hadda markii la qaadanayn 8 sano war cusubadkam waxa u suurta gashay in maantay uu wareys ku qabtay Nuur Xaaji Axmed oo laga qaatay caruur badan iyo baashi oo dagaal ugu jiray sidii caruurta loogu soo celin lahaa warbixin yar ma naga sii kartaa Nuur xaaladda hadda ay maraysa caruurta bismillaahir rahmaanir rahiim xasan kulay waxaan u maleynayaa wareysigani hore ayaa iga qaaday mar aan halkan bishii June imid isla markaana hore waxaan u sheegay in maaragtay arrimihiinu ay marayaan ilaa maxkamaddii lagmanitreedka inaanu hadda inoo joogtay nasiib wanaag maxkamaddii lagmanitreedka ayaa waxay soo baxday fataakeedkeeda ama go'aankeeda wuxuu soo baxay 29 bishii 6 runtii taasi oo ay ku go'aamisay laba ka mid ah caruurta laba gabdhood in dib haddana loo soo celiyo oo ka mid ah caruurtii hore loo haystay runtii arrimahaasi waa labadii gabdhood ee maxkamaddu go'aamisay mid ka mid ah hadda waa la keenay guriga oo hooyadeed bay la joogtaa midii kalena weli lama keenin processkeedii soo celinta iyo waxaas ayaa hadda lagu guda jiraa laakiin waxaa nasiib darro ah gabadha yarta ah markii gacanteeda ay ka baxday kadib waxaa la geeyey iskuul oo macnaha Christian school ah waxaana dhacay maaragtay isbedel runtii aan filaynin oo hore loo qarinayay oo hadda ka soo baxay canugtii in diinteedii laga bedelo luuqadeedii ay weyso taasi oo ilmaha Soomaaliyeed ee dhamaantood ay qolooyinkan qaadanayaan ay ku hayaan wax ma aha canuga kaliya waxa weeye dhaqankoodii la bedelo diintoodii oo laga baabi'iyo luuqadoodii oo waayaan intaasi oo run ahaantiina ay tahay caruurta mid ay xaq u leeyihiin isla markaad raacid baana convention-kana uu qabo inuu canuga haddii xitaa waalidkii laga qaado inuu xaq u leeyahay inuu haysto luuqadiisii dhaqankiisii iyo diintiisii runtii dhibaato weyn baa hadda meeshaas naga soo wajahday oo gabadhiyo diintii ka bedelan maxaa ku daa diinta ka bedelan dabcan gabadhani waa gabar Soomaaliyeed waa gabar muslima in laga dhigo Christian in laga dhigo ay maraysa oo ay diinta Kristanka macnaha dabcan maanta ku leedahay macnaha anigu muslim ma ahay anigu 12 jir ayaa maanta ku leeyahay anigu muslim ma ahay diinta laga bedelay yes Christian baa loo hayo noqotay halkaas hadda maanta waxay taagantahay hadda ay u iman laada ilaa hadda waxa weey waan ka baqaya ani Christian baan noqday muslim maragtay halkaas hadda maraysa waxa la Christian noqday mana soo socdo arrimo noocaas oo kale hadda soo baxbaxayo hadda markii maxkamadda go'aankan ay gaartay kadib hadda soo kordhay asbuucan hadda beesha hadda isla sababtaan u joogna arrimahaas ka mid ma qasana jirtaa gabadha 12 sano jirta hadda markii la qaadanayn 8 sano ماشي أريمان وقت دير يا لسعتي سوارتا قبل كريستيان كنقطي فكر هان أدي سمح قبلكتا بسم الله الرحمن الرحيم هرت واحد مهم أرنتو رنتو وارين عادي أدم نقوله مركز شرعي النور ومقبو المه يدي به لقى قاضي أنا وكل صنع دام كنور ويدين عبانة بأنها يدين على محكمة دبا إن دين تيسا يدقن كيسا لقى بدلو وحانيga marka muhiim ah arintani ma waxa weeye arin markale dhacday oo reerkan u bay khusaysaa iyo gabadhan yar bis dad badan ayay khusaysaa marka runtii taan anigu ku dadaali doonaan imikana ka shaqeynaya hadii ilaahay ma ko waxa weeye in arinta iyada ahi dadkii hadii ay reerkan istan sameeyeen in maxkamadda la tiigsado oo maxkamad shicib ah oo madani ah la tiigsado oo ay maxkamad noqoto kadib marka caruurta soo noqoto marka taas sideedaynu raacayna oo waxa sharcigu ka qabo aynu yeelayna waalinta Soomaaliyeed waxaanu sheegayaa caruurtooda laga qaaday hadii ilaahayd ma qof waliba inuu xaq u leeyahay in uu ilmihiisu diintiisa iyo dhaqankiisa haysto isla markaana ixtiraamo sharciga Norway haddaba waxa waajib idinka saaran yahay inaad la socotaan ilmihiina aqeedadiisa intiina la tusi karo iyo intaan la tusinba hadii la idin ogolaan la tusin ina community-ga la soo xidhaan Soomaalida la soo xidhiidhaan muslimiinta la xidhiidhaan weydiisaan ilmaha maarta aqeedadiisa ay tahay ciidiisa lagu soo xidho ummadda lagu soo xidho marka taas muhiima marka waxay noqonaysaa runtii in heer maxkamadeed arrintan ay noqoto laakiin waxa la yiri min jadhooqo marba mid baa la saaraa waxa imkan Nuur waajib ku ah in afar baa soo noqday hadii ilaahayd mar labadii way soo noqdeen labadii kale in afartani markay isugu yimaadaan in family-gu kulmo hal meel la family-gu markuu ku kulmo markaana aynu qaybtii labaad sidii caruurta loo soo celin sidii arrintan looga hortagi lahayn dib ugu dhici lahayn cid kale iyo sidii gabadhan yar loo badbaadin lahaa waa la ogol yahay inay soo noqoto hadda gabadhu laakiin waqti un bay naga qaadanaysaa maxkamaddu waxay go'aamisay in aanay xitaa baarabaanuhu rafcaan ka qaadan karin marka meesha legal ba inuu yaalo sharci baa yaal gabadhana waa soo noqonaysaa laakiin waa in lala hadlo si degan waa in maaragtay baanabaanaha iyo hay'adaha khuseeya
lala hadlo iyagana si degan oo maaragtay bini'aadamnimadana waafaqsan gabadha dareenkeedana aan la dhaawicin shacabkeedana wanaagsan marka runtii taas anigu xildhibaan ahaan waxaan ballan qaadayaa insha allah in aan dabageli doono arrintan iyo kuwa kalena si aanay dib ugu dhici lahayn insha allah waxaan rabay inaan raaciyo macnaha arrintan kulley horta waxay soo bilaabatay waqti dheer ilaa haddana waqti bay daba joogtaa laakiin kuwa iyada ka sii yaryar ba hadda gacanteeda ka maqan oo aan waxa aniga walaaca igu taagan uu yahay kuwa iyada ka sii yaryar bal maxay noqon doonaan maadaama hadda maanta iyadoo 10 sano jirta kan 4 sano jira ama 6 sano jira ama 8 sano jira iyada ka yar muxuu ku sugan yahay aan wali gacanteeda ku soo noqon maxkamadina aanay wali go'aaminin inay soo noqdaan kuwa kale ee Soomaaliyeed iyaga la da'da ama waalidkood annagu hadda jaanis badan baan helno waxa carruurta waa booqanaa waa aragnaa telefoon bayna ula hadlaan laakiin kuwa waxa jirta waalidkood furbud bal looga dhigay inaanay arkin muuqaal ahaan inay la hadlaan runtii dhibaatooyinkaasina waxay saameyn kartaa canug kasta oo Soomaaliyeed iyo canug kasta oo muslim oo dalkan jooga waxayna u baahan tahay in dadku iyagoo isku xiran kulli anagu dadaalkayga inta aanu qaban karno waa qabaana wadaynaa ilaa iyo inta ugu dambaysa meesha ugu dambaysa inay gaaraysan midaan ka hari doonaa ma si gaara waxaan runtii uga mahad celinayaa arrimahan door muhiim ah ka ciyaaray dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed laakiin waxaad moodaa baashi in uu gurigii qoyskiisii macnaha anigu aan uga warqabo kale inuu daily basis ka waxa arrintan maalin walba meesha taagan tahay isla mar ahaantaasina hadda markii barnaamijkan uu soo baxay laftarkeedu aanu ka wada xiriirnay waanu ka wada fariisanay wajiga labaad ee dabcan arrimahan aan u wajahi doono runtii wuxuuna ii ballan qaaday in ilaa iyo daqiiqada ugu dambeysay inta noloshiisa uu meesha soo taagan yahay canug kastoo Soomaaliyeed inuu sidaas oo kale uu ku aanayo oo aan khaas u san aniga ugu aanayn aadna uga mahad celinaya baashi adiga waxa tahay musharax hadda sharaxan golaha deegaanka ku sharaxan maxaa isleedahay hadii lagu doorto way soo kordhinay taas arrimahan oo carruurta la qaadanaya maxay ka tiraysaa bismillaahi raxmaani raxiim haddii Soomaalidu maanta codkeeda midayso markii hore waxaan lagu doortay tiro haddii laakiin maanta aniga tayo laygu doorto ka soo qaad keligaba lay doorto ama cid kale la doorto waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ila garab galo ballan qaadayaa in arrimahan carruurta Soomaaliyeed aan yeelan doono awooddaasoo noqon doonta in layga dambeeyo in shacabka Soomaaliyeed midaysan yihiin oo de marka aan wax u qaban doono haddii ilahayd maan maxkamad iyo dhaqan ahaan aan dhaqankii diintiiba aanoo garanayn isla garab taagi doono marka waxaan shacabka ka codsanayaa kow inay codkooda bixiyaan haddii codkiina midaysaan oo fahantaan awoodda cod ku leeyahay waxaan ballan idiin qaadaya insha allah inay awooddiina arki doontaan codkiina hadda ay siisaan baasha maxamed muuse waxaan ku jiraa 61 xisbiga shaqaalaha waxaa ka codayn kartaan 10 August Greenland iyo meel walba waxaa la soo dhigaa goobaha codbixinta haddana waxaa ka codbixin kartaan codkiina ka dhiiban kartaan rooda huusaha maalin walba 8 ilaa 3 galabnimo marka codkiina haddaa dhiibataan insha allah waxaan idiin ballan qaadayaa in awooddaydu ay noqon doonto mid 3 jibaaranto ilaahayna subxaanahu wa tacaala inala garab geli doono anigu waxaan codsanayaa marka ugu horreysa inaydun codkiina isiisaan codkiina ayaan marti idinka ahay marka codkiina ay siisaan awooddaydu waxay noqonaysaa mid 3 jibaaran oo aan wax ugu qabto shacabka Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta aba marka runtii waa muhiim codkiina ay siiya waxaan ku jiraa 61 lambarka 61 arbeyda batiya ayaan ku jiraa ama xisbiga shaqaalaha codkiina marka ay siisaan awooddaydu way 3 jibaarmaysaa waxaan isla kiin garab taagi doonaa haddii ilahayd hiil iyo hoo anigoo fahansan dhaqankii iyo diintii intaba